الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka xigta magacaygu waa Professor Qaanuun waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo arrin aad iyo aad u muhiim ah dhammaan sidadood ogtiin ummad kasta oo adduunyada ku nool waxa bulshadeeda kamid ah dad ka shaqeeya wanaagga waxaa kaloo kamid ah qayb u taagan had iyo goor inay ummadooda ka waardiyaan dhibaato kasta ummadnimadaas ku iman karta waayo waxaa jiro dhibaatooyin aad iyo aad u waaweyn haddii ummadnimada ay mar ku dhacaan aan laga saari karin waxaa kaloo jira cudurro waaweyn haddii ummadnimada ay mar ku dhacaan aan laga daweyn karin sidaas darteed dadkaas wanaagga ka shaqeeya ummadeena Soomaaliyeed waa laga helayaa dadkaas wanaagga ka shaqeeya ummadeena Soomaaliyeed waa laga helayaa dadkaas wanaagga ka shaqeeya ummadeena laga heli karo dhamaantood maanta adduunyada waa isaga tageen adduunyada in laga tagaa wax weyn ma qof kasta ka tagay laakiin waxay ka tageen ayagoona indhaha saaran wixii ay ku taamayeen oo ah wanaagii ummadooda iyo horumarkii iyo khayrkii iyo nabadii ay la rabeen ayagoon arkin ay adduunyada ka tageen laakiin dhinaca kale waxaa nasiib wanaag ah waxa ummadda weli laga heli karaa dad wanaagga ka shaqeeya dadkaas wanaagga ka shaqeynayay annaga oo maanta ilaahay waxaan ka barayaa inuu marna tuso wanaagga iyo khayrka horumarka iyo barwaaqada ummadeena la rabno dhinaca kale sideed wada ogtiin ummad kasta oo adduunyada ku nool waxbay haysataa maanta waxaas waliba ay ku faanayso waxaas ay ku faanayso ama ay ku naaloonayso runtii hadiyad cid ku siisa ma jirto dad baa hergeliya haddana horseed u noqday sidaas si lamida anigana su'aal baan isweydiiyay oo ah ummadan aad ka dhalatay ee loo yaqaan ummadda Soomaaliyeed wax wanaaga ma horseedi kartaa haddii aad wanaag u horseedoy ka yeelaan ma ka dhigi kartaa dadka adduunka ugu sareeya su'aashaas jawaabteeda muddo ayay ugu qaadatay laakiin jawaabta aan soo helaa waxay noqotay haddii dadaal dheeriya la sameeyo wax kasta inay suuragal yihiin haddaba maanta aan joogno annaga waxaan wax ka sugaynaa dadka naga horreeyay laakiin nasiib darro dadka naga horreeyay wax kasta ay sameeyeen nama soo gaarin maanta sabab kasta ha yeelato maantaan joognana wax ma hayno jiilka soo socdana annaga ayuu xaggeena wax ka sugayaa maanta intaan isu imaano haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed wax ma ku heshiin karnaa annagoo nala soo bariyeen ama aan nala tuugtuugeenin markaan wax ku heshiina kadib wax ma dhisan karnaa annagoon waxba naloo yeerinayna ama agadaan nalaga taagnayn su'aasha jawaabteeda shaki igama jiro waa iska caddahay haddaba heshiiskan u baahannahay oo naafici kara maanta haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed iyo maamulka iyo kala dambeynta iyo dawladnimada aan u baahannahay ayaa waxaan aan ku soo gudbinayaa daraasadan cusub fadlan waa ina ila socotiin shantan tiir ay daraasadda macnaha ku taagan tahay shantan tiir oo kala magaca daraasadda aan xusi doono shantan macnaha dul mari doonaa magaca daraasadda iyo hordhaca daraasadda mawduucyada lagu soo qaadan doono iyo guraanadka daraasadda iyo qaab soo gudbinteeda hadda waxaan geli doonaa daraasaddii oo aan ka bixin doono maxaa la dhihi jiray sharaxaad guud oo shantaana sharaxi doonaa marka hore shantaan markaan sharaxna kadib ayaan daraasadii aan si rasmi u gudageli doonaa fadlan ay la socdo waxaan sharaxaad guud ka bixinaynaa daraasadda waa daraasad cusub kow magaca daraasaddan xusi doonaa magaca daraasadda waxaan ugu magac darnay daraasadda shanta gees sababaha aan u xulanay aan ugu magac darnay runtii waa sababeyn doonaa waan u tegi doonaa daraasadda gudahan ugu tegi doonaa sababtan ugu magac darnay laakiin hadda waxaan ku soo koobaynaa daraasadda shanta gees ka gudub hordhaca daraasadda shantan qodob ayaan ku xusi doonaa qodobka koowaad oo ah sababaha daraasadda keenay wax kasta sabab la'aan ma yimaadaan sababta daraasadda keentay aan sheegi doonaa labo faa'iidada daraasadda ku jirta ayaan sheegi doonaa wax walbaaba faa'iido ayaa ku jirta saddex daawada daraasadda ku jirta ayaan xusi doonaa daraasadda cusub daawo ma leedahay daawo inay leedahay in kalena waa kala arki doonaa dadka ay qusaysana waa aan sheegi doonaa ama ay ku socoto waayo wax kasta ujeeday leeyihiin qodobka shanaad oo ah
waqtigeedii ma la joogaa waqtigeeda in la joogo in kalena waa kala arki doonaa waxaan u gudbaynaa mawaadiicdan kusoo qaadan doona daraasadda kow mawaadiicdan kusoo qaadan doona waxaa ugu hor shanta mawduuc ayaan kusoo qaadan doonaa mawduuca koowaad oo ah maamulka maanta mawduucaas waxaan u xushay ama aan ugu talagalay markii aan soo bandhigo in qof kastaa markaan soo bandhigo qofka uu fahmo waxaan aad iyo aad u rajeynayaa qof kastaa inuu fahmi doono ama uu ogaan doono meesha uu taagan yahay meeshaas oo ah inay meel xun tahay iyo inay meel fiican tahay ayuu qofku kala ogaan doono mawduucaas sidaas ayaan u xushay mawduuc labaad aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid a mashaakilka qabyaaladda sababahan usoo qaata waxaa ka mid a waayo markaan soo bandhiga ama aan soo gudbiyo oo qofkan ila fahmo waxaan aad iyo aad u rajeynaa qof kastoo Soomaaliya in uu tanasuli doono qodobka kale aan kusoo qaadan doono waa maandeeq qodobka mawduucan waxaan u xushay inaan soo qaato runtii maandeeq waa hantida keliya ee aan leenahay oo naga dhexayso oo qofka aan ka raba markaan soo bandhigo inuu ogaan doono hantida keliya uu leeyahay inay iyada tahay dadka yaqaano waaba yaqaanaan dadka aan garanaynin inay ila fahmi doonaan waxaan u gudbaynaa mawduuca afraad aan kusoo qaadan doono mabaadi'da ummadnimada runtii markaan dul istaagna oon fahanno waxaan aad iyo aad u rajeynaa qof kasta oo Soomaaliya in uu ogaan doono cidda uu yahayba qofka uu yahay Soomaaliga inuu ogaan doono waayo dadka inta badan waxa ay yihiin ma fahansanaba dadka qaaraba waxay isu haystaan waxaysan ahayn waxaan kaloo u gudbi doonaa mawduuca aan kusoo gabagabayn doona oo mawduuca shanaad aan kusoo gabagabayn doona magaciisa waxaa la yiraahdaa miisaanka nolosha oo ah runtii midka dartiisa aan daraasadda u sameynay miisaanka nolosha waa midka dartiisa aan daraasadda u sameynay oo ahna midka aan u soconno runtii miisaanka nolosha waxaan rabnaa in aan ku dhisano wax kasta oo wanaag aan u baahanahay inaan ku dhisano waayo hore waxaan usoo sheegnay ummad kasta waxbay haysataa waxaasoo weliba ay ku faanayso annagana waxaan rabnaa miisaanka nolosha in uu noo noqon doono waxa keliya aan ku faanay doono faa'iidada iyo maxaa la dhihi jiray iyo waxqabadku annaga uu noo leeyahay waxaa intaas sii dheer faa'iidada iyo wanaag iyo waxqabadku annaga uu noo leeyahay markaan ka tagno runtii haddii ay isticmaalaan ummad kastoo adduunyadan joogto oo maanta mashaakil iyo dhibaato ka bixi weysay hadday isticmaalaan oo annaga ay noogu daydaan runtii waa mid ay maxaa la dhihi jiray mashaakilkooda ay ku xallin karaan waxaa kaloo faa'iidada uu noo leeyahay waxaa ka mid ah waa waxa keliya aan adduunyada aan ugu faani doonno miisaanka nolosha ayuu noqon doonaa markaan tagna ayaan arki doonaa haddeer laguma soo koobi kara intaan waxaan rabaa inaan sharaxaadan guud aan kusoo koobo miisaanka nolosha faa'iidadiisa waa u tegi doono waa midka aan ku dhisi doono heshiiska aan rabna iyo maamulka aan rabna iyo nidaamka aan rabna iyo dowladnimada aan rabna iyo kala dambeynta aan rabna iyo horumarka aan rabna waa midka aan ku dhisan doono hadduu ilaahay idma markaan tagno ayaan wax walba kala ogaan doonaa waxaan kusoo gunaanudi doonaa shantan qodob oo kala ah kow hay-adda hirgelinta howlaha ummadda waxaan dhisan doonaa oo kale hay-adda loo yaqaan hay-adda hirgelinta howlaha ummadda Soomaaliyeed waayo maanta wax hay-adoo dhisan oo ummadda wax u hirgelin kartaa ma jirto waa ogtahay ummadaha adduunyada markii dhibaatooyin ay ku dhacaan ama dowladnimada ay burburto ama ummadnimada ay wax gaaraan waa la saacidaa waa la kaalmeeyaa intii loo yimaada wax lala dhisaa marka annaga hay-addii wax noo qaban lahayd oo wax noo dhisi lahayd xaggeen kala imaanaynaa waana hay-addii maanta ma laga heli karaa dalka waa u tegi doonaa hay-addan waxay kaloo ka dhigan tahay maanta runtii waxaan annaga la mid nahay dad jooga webi jambigiisa u baahan jambiga kale inay tagaan jambiga kalena waxaa inoo yaalo wax kasta oon wax ku qabsan lahayn runtii marka hay-addan waxaan rabnaa inay noo noqoto buundo naga tilaabisa webiga si aan gedigaas u tagno markaan gedigaas tagno wax kastaa noo yaalo cageehna aan isugu dhisno hay-addan waa xusi doonaa waxaan kaloo kusoo gunaanudi doonaa
habka doorashada ummadda waa ogtihiin doorashada dhibaato weyn ayaa ka taagan ani doorashada hadda ma ka hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa habka ummad ahaan aan isu dooranayno ya doorashada ugu wanaagsan ee adduunyada wax badan ya aan kaga bedelaan doona ayaan ku soo bandhigi doonaa waa ogtihiin adduunyada qaab kasta dad walbaba qaabkay rabaan isu doortaan ya marka doorashada ugu wanaagsan ya ee annaga haddii la yiraahdo doorashada ugu fiican adduunyada annaga uun ugu horeyn karno ayaan ku soo bandhigayaa waxaan kusoo gunaanadi doonaa habka qaybinta khayraadka ummadda khayraadka saan u qaybsan lahayna waan ku soo bandhigi doonaa khayraadka in la qaybsado waxaa ka horreeya in la soo saaro marka hore miisaanka nolosha ayaa waxaan ku dhisan doonaa hay-adihii noo soo saari lahaa khayraadka habka qaybintana waa ku soo bandhigi doonaa habka qaybinta khayraadka ummadda waayo khayraadka annaga dalkeenna wuxuu noqday adduunyada midka ugu khayraadka badan maanta dushiisana aan ku dhibaato badan ay nagu haysataa marka waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay idmo habka ugu wanaagsan aan ku qaybsan karna inuu noqon doono waxaan kaloo kusoo bandhigi doonaa aan kusoo gunaanidi doonaa waxa loo yaqaana hantida guud ma leenahay hanti guud oo naga rabta qof kasta ka rabtaa inuu ilaaliyo hantida gaarkana oo kusoo bandhigi doono ma leenahay hanti guud oo naga rabta qof kasta inuu ilaaliyo hantida gaarka ah oo kusoo bandhigi oo kusoo gunaanidi doona ma jirtaa hanti gaara oo ilaalin naga rabto waxaan u gudbi doonaa qaab soo gudbinta daraasadda shanta gees qaabkan daraasad kasta oo la soo saaraa qaab ayaa loo soo gudbiyaa inkastoo qaab soo gudbinta daraasadaha isu wada egyihiin laakiin aniga qaabkan ayaan doortay kow waxaan isticmaali doonaa sabuurad si qof kasta uu noo fahmo waayo waxaan rabnaa inaan ku salayno qofkeena ugu fahanka yar ya ama ugu aqoonta yar aan rabnaa inaan ku salayno maxaa la dhihi jiray fahankiisa waxaan kaloo isticmaali doonaa jeesto oo maxaa la dhihi jiray qoraalka waxaan qorayna si loo fahmo waxaan isticmaali doonaa waxaan isticmaali doonaa tirada shanta ahna faa'iidada ay leedahay waa arki doonaa daraasadda qayb ayay ka tahay laakiinse markaan daraasadda soo bandhiganay tirada shantan isticmaali doonaa afar daraasadda yaa soo gudbinaya cidda soo gudbinaysa waayo daraasadda waxaa soo gudbinaya professor qaanuun ayaa soo gudbinaya daraasadda qodobka u dambeeya qodobka shanaad xaggee lagala soconaa daraasadda meel lagala socda ayaa la rabaa waxaa lagala soconayaa youtube channelka ee loo yaqaano muuqaalka nolosha aan ugu talagalnay inay bulshada kala socdaan daraasadan cusub waayo daraasadan cusub wax gaara kama hadlayso waxa guud ee ummadeenna iyo dalkeenna u dan ah ayay ka hadlaysaa qof kasta waxaan ka rajayn doonaa inuu la socon doono marka daawada waxaan wax badan aan kaaga mahadcelinaa daawashada la socodka daraasadan si aad ula socoto daraasadan waa in aad si joogtaa maxaa la dhihi jiray si joogtaa waa inaad ula socoto adigoo qayb walbaba la soo geliya aad rukuman doonto saas ayaan rajaynayaa daraasadeena halkaas ayay noo joogi doontaa isku soo noqod wanaagsan qaybtan qaybta xigta waxaan ku bilaabi doonaa qaybta ugu horeysa daraasadda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu